kulankan oo abdhicitaankiisa ay si weyn u soo qabanqaabiyeen isuguna yimaadeen badiba warbaahinta ka howlgasha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay wax laga xumaada ku tilmaameen xadhiga laba wariye oo maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin uu ku xidhay magaaladaasi Berbera waxayna ku tilmaameen xadhigaasi wariyaasha mid sharciga baalmarsan iyagoo maayarka ugu baaqay inuu si degdeg ah xoriyadooda u siiyo labadaasi saxafi wixii tabashaana sifo sharciga waafaqsan lagu kala baxo muddooyinkii u dambeeyay waxaa caburin cagajugleyn iyo caado noqotay xadhiga iyo tacadiyada lagula kacayo saxafiyiinta badiba ka howlgasha gobolada Somaliland kuwaas oo inta badan sifo sharci darro ah lagu soo xidho muddo kadibna la sii daayo iyagoo aan wax dambi ah lagu soo cadayn anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca baada ururka suxufiyiinta ee gobolka Sool waxaan halkan ka cambaaraynaa xadhiga labada wariye ee ku xiran magaalada Berbera dabcan xadhigooda ka dambeeya inay xorriyadooda u soo celiyaan sanadkii 2018 ay wali soo noqonayso caburinta saxaafadu iyadoo inta badan Somaliland ay dastuurkeeda ku sheegto inay saxaafadu xor tahay waanu ka xunnahay in shakhsiyaad gaar ah ay awoodda shacabka ay ku takrifalaan iyagoo awoodda shacabka markaas isticmaalaya meerka degmada Berbera Cabdishakuur Cidin waxaan leenahay waa laga baxay xilligii qof qol lagu xidhan jiray haddii aad kiis qabto ama aad eedayn ku haysato wariyaashaas ama tacaddi ka galeen xeerlaaninta la kaasho maxkamadda gee wixii kiisku hesho ku qaad marka 100 amaanad laga sheego halka dhaliliyaysa ku dhiman marka maayar waxaan ku leenahay inoo ka soo hadlayna Laascaanood oo cilafka bariya wariyaashaas sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda u gee waxaan ka xunnahay xadhiga lagula kacay wariyaasha ku xiran gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera waxaan leenahay وين صدق سياي حريته وهلان هذا أنا ورياش أكون رقم مقالة لاسعانود كهول قلا وحنوال كان ما تباغ قدرنا ما يركا دقمة بربرة ويقول إنه يسيح قدرها لبوري أو كحنا مقالة بربرة وحنلنا ما يرك ما ها إلا سكحنا الصحفيين تا اسكحنا هذا نشل وين شرعي اللي هو رجيا وحي شرنا للدمية هذه ستة عشرة تشيل كاس كوشنا ورياش أسي وحنلنا هاي شرعي hawsha ha ka howlgalo sharcigana la horgeeyo hawshaana la galo waxaan walkan maanta isugu nimid cambaareynta xadhiga labada wariye ee ku xiran magaalada Berbera waxaan ugu baaqanaa maayarka magaalada Berbera in uu soo daayo labada wariye maayarka degmada Berbera tacadiyadu kula kacay wariyaasha ka howlgala gobolka Saaxil labada wariye ka howlgala TV-ga Ariel iyo TV-ga Saab waxaan u sheegnaa maayarku inuu ka daayo tacadiga uu kula kacay saxaafadda gobolkaasi halkan waxaan u sheegayaa wariyaasha ku xiran Saaxil in xorriyadooda loo sii daayo baan leenahay nimanka waa niman wariyaala xorriyada shayga ugu qaalisan adduunka la helo waa xorriyada marka waxaan leenahay nimanka wariyaasha maayar siida aad ku xiran tacadiga loo geystay labada wariye ee lagu xiray magaalada Berbera oo xiray maayarka magaaladaasi in badan way soo noqdeen tacadiyada wariyaashu oo laga hadlay waxaan saxaafadda maayarka ugu baaqaynaa in ay si degdeg ah u soo daayaan labadaas saxafi ee sharci darrada lagu xiray haddii labadaas saxafi ay dambi galeen sharciga maxkamadda la keeno wixii dambi ay galeen ha lagu qaado bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halka ka cabaareynaa wariyaasha ku xiran magaalada Berbera وري أحمد السعيد يسوق وري عبد الرحمن عيقا وكل هؤلاء تيفيدا كهؤلاء مقالة بربرة وحنون لنا هاي ورياش عدالة ها هلين كل سمعني لو عدالة وكشغ يا متشلان يعني بنيكو كأود وياهين ووادك سأود ديسا ما يركب بربرة وحلنا هذا ده هنتيجي مضى بوطية الوشاقي يا كقرنا جنعت حلنا هاي دي ورياش ويصاب بندقين مضى دول مقاد كشيء وواح شرعي وي واحد كشوك سنة يعني ماها ما أنت دل سيدا يعني هل الكلام بيوشوا كسب مغاني ماها مد بقدر قليل يسوياشة لبدا سوريا وكهول قال تلفزيون هذا أريال يسيدو كلاسام أيامي ودن بيجيكو حنا مقالة بربرة أي حرونتا قبل كساحل وحين صحافة قبل كسول أي ما يركبوا باقين إلا سيدا أي لبا أسي صحافي محمود هذا نسكر محمود قريش سومالي يستيفي لا سعنود